بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كastoo aad joogtaan waa isniin 16 bisha June sanadka 2025 ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo macluumaad falanqeyn iyo faahfaahin bay idinka siinaysa howlgallada ay Iiraan ku baxsanayso wakiilada Mossad ama hay'adda sirdoonka Israa'iil ee ka howlgalaya gudaha Iiraan dagaalka ay ku jirto Iiraan ee la xiriira bacsiga sirdoonka sida markii horeba Iiraan loo dhexgalay ee suurgalka ka dhigay in wakiilo Israa'iil ay howlgallo ka dhaxfuliyaan gudaha Iiraan ayaa sidoo kalena macluumaad aad ka heli doontaan balse intaana guda galin warbixinteena waxaan ka codsan inaad ku soo biirtay kanaalkan YouTube ee Imaan Jaamac oo maalin kasta ku siinaya warbixinada kuwada ugu doorka roon falanqeyn macluumaad iyo dhacdooyinka isla xilliga soo dhacayaan marka la soo dhawaada Iiraan ayaa si baan ugu howlan la dagaalanka xarumaha iyo wakiilada sirdoonka Israa'iil ee Mossad kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay si qoto dheer ugu dhaxmilmeen gudaha Iiraan una fuliyeen howlgallo culus oo dhabar jab ku ah amniga qaranka Iiraan arrintan waxay abuurtay hal su'aal oo si qoto dheer la isku weydiinayo sidee Mossad ku gaartay heer ay gudaha Iiraan uga fuliso weeraro dilal basaasnimo ay la yaabaan xitaa saraakiisha ugu sareysa sirdoonka Iiraan dagaalka Iiraan ay ku baxsanayso Mossad dowladda Iiraan ayaa si rasmi ah u shaaciyay howlgallo ballaaran oo ay ku sifaysay inuu yahay xaaqista gacmaha Mossad ee gudaha Iiraan tani waxay ka timid kadib markii dhowr weerar oo qorshaysan laga fuliyay xarumo muhiim ah oo kuwa nuclearka dilal saraakiil sare oo militariga iyo saynisyahano ay ku jireen taasoo u dheertahay in xarumo dowladeed iyo goobo gaar ah oo hay'adaha sirdoonka ka mid yihiin xarumahooda in sidoo kale la beegsaday dhammaanna weeraradaas waxay u muuqdeen kuwo gudaha laga abaabulay weeraradan ayaa dhaliyay in Iiraan si dadban u aqoonsato in gudaheeda uusan ammaan ahayn isla markaana uu jiro jahwareer amni oo ay sabab u tahay in Mossad ay suurtagelisay weeraradan ayaa dhaliyay in Iiraan si dadban u aqoonsato in gudaha dalkeeda uusan ammaan ahayn isla markaana uu jiro jahwareer amni oo ay sabab u tahay in Mossad ay suurtagelisay inay gudaha u gasho xarumaha istiraatiijiga ee Iiraan inay weerar ka fuliyaan gudaha Iiraan iyadoo xataa aan loo baahnayn in howlwadeennada wakiilada Mossad la qabto kooxaha la shaqeynaya sirdoonka Israa'iil ee ka howlgalaya gudaha Iiraan ayaa sidoo kale sameeyay waxyaabo la yaab leh oo ka dhigaya in ficilkooda ugu sarreeyay ay dal madax bannaan ka dhex sameynayaan waa inay ku xireen gudaha Iiraan gantaalo sidoo kalena ay ku diyaariyeen saldhigyo loogu talagalay diyaaradaha duuliyaha lahayn gantaalada waa la riday oo howlgallo ayaa lagu fuliyay diyaaradaha duuliyaha lahayn sidoo kale markan wuxuu muujinayaa halista degdega ee Iiraan ay wajahayso marka loo eego dagaalka sirdoonka iyo suurtagalnimada weerarada degdega sidee Mossad ugu milantay gudaha Iiraan Mossad waxaa lagu tilmaamaa sirdoonka ugu weerarada fog ee wax ku oolka fuliya marka loo eego sida taxadarku ka fog yahay ee u dhaxgalaan dalalka dhexgalka ay Iiraan ku sameysay Mossad wuxuu u dhacay saddex siyaabood oo waaweyn Mossad ayaa si joogta u adeegsata dadka reer Iiraan ee lagu tilmaamay inay cabursan yihiin kuwa qurba joogta ah ama xiriirka la leh mucaaradka wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dilalka saynisyahanada iyo weerarada saldhigyada Iiraan laga farsameeyay iyadoo laga faa'iideysanayo xogta gudaha tiknoolajiyadda waxaa la xaqiijiyay in Mossad ay gudaha Iiraan ka dhistay xarumo aan la dareemi karin oo ay ku rakiban yihiin nidaamyo hub casri ah oo lagu hago internetka qalabka waxaa ka mid ah gantaalo yaryar oo laga hago meelo fogfog diyaaradahan duuliyaha lahayn oo lagu dhex rakibay dhul beereedyo iyo meelo ka fog raadarada Iiraan qalab lagu duubo dhaqdhaqaaqa xarumaha muhiimka ah oo aan laga warqabin laaluushka iyo dabagalada dhinaca internetka Iiraan waxay si weyn ugu jabtay dhinaca weerarada internetka waxaana jira cabsi weyn oo laga qabo in Mossad hayso marayna ay ku dhageysato wasaaradaha Iiraan iyo qaybaha difaaca iyadoo loo soo marayo habab hore oo wakiilada Iiraan oo qaarkood xilalka haya dowladda ay fududeeyeen fashilka sirdoonka Iiraan xagee ka yimid fashilka sirdoonka Iiraan ayaa ka muuqda dhowr arrimood oo isku biiray kala daasanaanta hay'adaha sirdoonka laanta isuduwidda ayaana horseeda in la waayo faham wadajir ah oo laga yeesho hanjabaadaha ama khatar kasta oo gudaha iyo dibaddaba ka jirta tiro badan balse tayo yar marka loo fiiriyo Iiraan waxay leedahay hay'ado dhowr ah oo dhinaca sirdoonka oo ilaa iyo 4 hay'adood ka kooban kuwaas isugu jira kuwa militariga ilaalada kacaanka booliiska iyo kuwa weerarada internetka fuliya sidoo kalena ka hortaga tirada wakiilada sirdoonka Iiraan ee gudaha waa badan yihiin balse waxaa la sheegay in tayadooda aad u hooseyso marka la barbar dhigo qaab dhismeedka Mossad taasoo meesha ka saartay awoodii xog ururinta ee saxda ahayd waxa ugu daran ayaa in Mossad ay helayso xog gudaha oo sax ah taasoo tilmaamaysa in dad badan oo muhiim ah ama nidaamka uu aad u aaminsan yahay oo la shaqeynaya Israa'iil inay jiraan tani waxay sal u tahay fadeexada sirdoon ee Iiraan maxay ilaa hadda bedeleen howlgallada Iiraan ay ku baxsanayso wakiilada Mossad ee labadii maalin ee u dambeysay sare maray markaas oo tiro badan oo wakiilada Mossad iyo Islaamiga ku lahaayeen gudaha Iiraanba ay u soo rogashay sirdoonka Iiraan inay gacanta ku dhigaan tani markuu bilaabmay dagaalkan u dhaxeeyay Iiraan
iyo Israel. Iran waxay bilowday dagaal sirdoon oo gudaha oo balaaran iyadoo qabatay dad lagu tuhunsan yahay inay la shaqeynayeen Israel, gaar ahaan muwaadiniin u shaqeynaya shirkado ganacsi, saxufiyiin iyo xataa saraakiil ka tirsan ilaalada kacaanka. Wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ka badan 30 ruux lagu xiray Tehran, Isfahan iyo Mashhad, qalab lala xiriirinayo Mossad oo laga helay dhismayaal kala duwan. Xarumihii la bartilmaameedsaday in dib loo xaqiijinayo ammaankooda lana geeyay ciidamo khaas ah oo nidaamku aaminsan yahay si looga hortago in markale wakiilo sirdoon oo Iran u shaqeynaya dhex galaan howlgalana ka fuliyaan. Xaaladan iyo isbedeladan ay Iran ka aragtay gudaheeda oo ka dhalanaya korarka weyn iyo howlgallada ay sameynayaan wakiilada Israel u shaqeynaya, taasi waxay noqotay wax toogan oo faa'iido u yeelatay Iran. Waxay Iran siisay cudud siyaasadeed oo ay ku yiraahdaan waxaan difaacaynaa nafteena, taasoo keentay in si feejigan ay meel walba hadda Iran uga howlgalayso wax aysan horey u samayn oo ay hadda ka faa'iideyso dagaalkan. Waxa laga yaabaa in howlgalladan ay dib u dhigaan qorshayaal iyo weerar kale oo Mossad ay dabacsaneed, laakiin sidoo kale waxay muujinaysaa in Iran weli aad ugu nugushahay isla markaana waqtigu ku dhamaaday dhanka difaaca gudaha, maadaama ay hadda si weyn Iran ugu mashquulsan tahay in ay meesha ka saarto wakiilada sirdoon, taasoo loo qaadan karo mid ka mid ah muhiimadaha ugu waaweyn iyo guulaha ugu waaweyn ee nidaamka uu hogaamiyo Khamenei ay helayaan haddii dagaalkan la soo gabagabeeyo, maadaama ay ka takhaluseen wakiilo badan, sidoo kalena ay heli karaan macluumaad badan oo ay ku dabagalaan wakiilada kale ee ku dhex jira gudaha Iran. Mossad ayaa u muuqatay inay ku guuleysatay weerar ay Iran ku tilmaamtay argagax hubeysan oo gudaha, taasoo muujinaysa awood ay si fudud ku dhex geli karto dal kale. Waxaa muuqata in dagaalku uusan ahayn mid gantaalo kaliya lagu xaliyay, balse uu yahay dagaal maskaxeed, sirdoon iyo mid si feejigan loo qaaday. Howlgallada Iran ee hadda socda waxay matalayaan difaac nafta lagu badbaadinayo, laakiin lama hubo inay xalinayaan salka dhibaatada. Ahmiyadda ay leedahay isku xirnaanta sirdoonka qaranka, wacyigelinta shacabka iyo dib u dhiska nidaamka amniga gudaha ayaa ah shaqooyinka u yaala inay qabato dowladda Iran. Su'aalaha ayaa ka dhalanaya xaaladan oo ay ka mid yihiin ma la gaaray waqtigii Iran ay dib u habeyn ku samayn lahayd dhismaheeda sirdoon ay la jaanqaadi lahayd Mossad iyo quwadaha kale ee casriga. Waa waxaan hadda ka aragnay gudaha Iran, taasoo suuro gelisay inay gantaalo geyso Mossad gudaha Iran, isla markaana ay ku guuleysato inay howlgab ka dhigto qaar ka mid ah nidaamyada difaaca. Inta oo kaliya ma ahan dhammaan saraakiishii mudnaanta u lahaa ammaanka iyo difaaca Iran ayay ku guuleysatay Israel inay disho. Waxa xigay iyo waxa ay Iran la kulmayso waxay ka dhalanayaan waqtiga, iyadoo hadda dagaalkan uu muuqdo inuu ku riixi doono Iran isbedel weyn oo gudaha lagu sameeyo marka dagaalkan la soo gabagabeeyo. Walow marxaladan dagaalkan hadda u muuqato mid sii dheeraanaysa muddo dheerna, Mossad iyo wakiilada Israelba ay si weyn xogahooda iyo howlgalladoodaba uga fulinayeen gudaha Iran, taas oo khatar weyn ku keenaysa nidaamka. Walow hadda ay muuqanayso in Iran ay doonayso inay soo afjirto dhibaatada gudaha ka jirta oo u muuqatay inay tahay meesha saamaynta ugu weyn iyo burburka ay kala kulmayso Iran. Warbixinteena ayaa intaasi nooga eeg hadduu eebidmo intaan warbixinta xiga ku kulmayno. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.